maxaabiistan waxay cafis ka heleen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markii madaxweynuhu u soo diray guddi baara xaaladda maxaabiistan ku jirta xabsiga dhexe. Soomaaliya waxay gashay jawi cusub waxaan kooxda u horeysay aan sii deynayna maanta oo anagu raacayna ma aragtay talada madaxweynaha xeerku soo saaray waa koox lagu haysto lacag haddii aan xogaa niga taabto dadka lacagta loo haysto waxaa ka mid ah qof la soo xiray bishii sagaalaad ee sanadkii hore ilaa maantana xiran lagu leeyahay lacag ku dhow $30 qiyaas ahaan. waxaa kaloo jira muwaadin Soomaaliyeed runtii u xiran muddo ka badan 5 sano lacag dhan $380. marka arrimahan waxay muujinaysaa in loo baahay in lagu waxay isbedel runtii iyo hagaajin iyo dib u habeyn garsoorka dalka. dadkan qaarkood waxaa lagu riday xukunno kala duwan kadib markii ay galeen dambiye yar sida lacaga deyma ah oo qaarkood lagu yeeshay. Sareeyagaas Xuseen Xasan Cismaan taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed ayaa sheegay in dawladdu ay bixinayso lacagihii lagu lahaa dadkan isagoo la dardaarmay maxaabiistan cafiska loo fidiyay. horta waxaa nasiib wanaag ah dawlad ayaan helnay dawlad ka fakaraysa maaragtay ninka dhibaatada haysta oo maaragtay muxuu ahaa lacag lagu leeyahay warkaas muwaadinkaas muxuu xiran yahay lacag lagu leeyahay anaka bixinayna sooda hal sooda hal cafi dawladda tiri dawladda ciyaar ama khayr Allah siiyo waxa weeyaan waxaan leenahay maaragtay nabad iyo naxariis korkiin Allah ka dhigo kow magaalada haddaad ku noqotaan waxa weeyaan ummadda Ilaahay hal badbaado xabsiga haddaad u soo noqotaan anaka waxa weeyaan maxkamadaha waa codsanayna waxaan leenahay xabsi dheer ha lagu xukumo nimankan waxa weeyaan ma shaqaysanayaan. maxaabiistan ayaa ka hor inta ayna ka bixin iridda xabsiga waxa ay muujiyeen siday ugu faraxsan yihiin cafiskan uu madaxweynaha jamhuuriyaddu u fidiyay. magacayga Xuseen Yaxya Ibraahim waxaan salaamayaa madaxweynaha federaalka mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maanta arrimahan ummadda Soomaaliyeed oo dhibaatada ku saabsaneed oo maanta alxamdulillaah rabbil caalamiin oo ka bixiyay wixii hanti lagu lahaa oo ummadda Islaameed waxaan u baryayaa Ilaahay cimri dheer iyo caafimaad inuu Ilaahay siiyo. anigoo ku hadlaya maanta oon ahay Maxamed Xuseen Muudey oo ku eedeysnaa dahab waxaan u mahadcelinayaa maanta madaxweynaha dawladda federaalka mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo waxaan kale u mahadcelinayaa ra'iisul wasaarihiisa Xasan Khayre waxaan kale u mahadcelinayaa gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Cusmaan Jawaari waxaan kale u mahadcelinayaa guddiga ka soo shaqeeyay inay maanta banaanka na soo dhigaan xaqeena ay noo soo saaraan. waa mahadsantihiin ayaan leeyahay. waxaan ku eedeysanahay lacag dhan $200 ayaan muddo u xiranahay laakiin xabsi wax dhibaato kalama kulmin. hadda waxaan meeshan ka salaamayaa madaxweynaheena sharafta leh Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo ra'iisul wasaarihiisa Xasan Cali Khayre iyo guddiyaashii arrintan anaga hadda xorriyadeena nasiyeen. in ka badan 1,000 maxaabiis ayaa ku jirta xabsigan oo ah xabsiga dhexe ee dalka uguna weyn xabsiyada waddanka kuwaas oo madaxweynuhu dhawaan sida daawaneyseenba u xil saaray guddi soo baara xukunada soona qiimeeya xaaladda maxaabiista ku jirta halkan si wax looga qabto arrimaha cadaaladda dalka. Cali Baashi Cabdullaahi warbaahinta qaranka xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho.